boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay maanta xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. xeebta Liido maalmaha Jimcaha iyo Sabtiga dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimaada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa yimaada. hase ahaatee dhawaan amar ay ka soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya inaan la isugu tagin goobaha ay ka mid tahay Liido, iyadoo laga digtoonaanayo ama laga hortagayo cudurka COVID-19. inkasta oo ay aad u yaraayeen tirada dadka u dabaal tagay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho maanta marka loo eego toddobaadyadii hore, haddana waxaa jiray dad badan oo maanta joogay xeebta, waana taas mid keentay in ciidanka ammaanku ay sameeyaan howlgal dadkaasi ay ku yareynayaan, iyagoo fulinaya amarkii dowladda ee ahaa in la joojiyo isku imaatinka goobaha waaweyn oo ay xeebta Liido ka mid tahay si looga hortago dhibaatada cudurka adduunka oo dhan saameeyay ee corona. askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa hadda yimid, waxa ay bilaabeen in ay dadka ka soo saaraan xeebta, iyagoo fulinaya amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa inaan la isugu tagin goobaha Liido ay ka mid tahay. dadkii hadda ayay ka soo baxayaan sida aad u jeedaan xeebta, iyagoo qaadanaya amarka ciidanka booliska ee hadda yimid xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, taas oo wax badan ka bedelaysa in dadku ay ka yaraadaan. ciidanka oo qaarkood doonyo adeegsanayay ayaa dadka u sheegayay in ay badda ka soo baxaan una hoggaansamaan amarka dowladda. sidoo kale ciidanku waxa ay burburinayeen goobaha ganacsiga ee yaryar ee buushashka loo yaqaano ee ka dhisan xeebta Liido. qaar ka mid ah dadka xeebta u dabaal tagay ayaa ka hadlaya sababta keentay, iyagoo og in amar laga soo saaray imaatinka xeebta Liido waxa ku kalifay inay tagaan. magacaygu waa Xasan Xuseen Buubaal, degmada Kaaraan degana, xaafid Sanca. maanta Jimco waaye xeebta Liido ku dabaalanaysaa. aad iyo aad waa xeebta aad u macaan badan tahay, inkastoo maanta dadka la rabay inay joogeen sidii hore haynin, laakiin waa ku raaxaysto heynaa. sababta u imaaday maanta macnaha badda waa soo aaday, macnaha dadka in la joojiyo in kale horta badda maanta soo fiiri, macnaha dadkii oo jooga wada dabaalanayeen haddaa imaado waa inaan dabaasho Soomaan. marka insha Allah meesha badda faaruq haddaa imaan lahay tidboontiyadana la iska celinayo waa iska laaban lahay. Axmed Cabdullaahi Baashane oo ah taliyaha saldhigga booliska degmada Cabdilcasiis oo hogaaminayay ciidanka howlgalka ka sameeyay xeebta Liido oo aan halkaasi kula kulanay, ayaa sheegay in loo baahan yahay in wacyigelin ku saabsan in dadku aysan soo aadin xeebta Liido la sameeyo, isla markaana shacabka looga baahan yahay in ay gacan ka geystaan ka hortagga cudurka COVID-19. in badda Liido ay tahay meel cidla dadkiina la tacaalayno oo wacyigelin badan u baahan yihiin in loo sheego. dadku qaar aan isticmaalin idaacadaha iyo websaydyada u baahan inay arkaan aragti ciidanka booliska oo shaqaynaya. sidaas darteed waxaan rajaynaynaa waa wadi doonaa annaga inaan dadka wacyigelino oo u sheegno in ay maaragtay la isku imaan karin maalmaha oo dowladda amar ku bixisay labada sistemaan. waxaan rajaynaynaa in maalmo badan soo dhaafeen. waxaa ugu daran Jimcadii Khamiista, xalay maalihii waa hirgaleen oo la iskugu imaan jiray shiishado oo kale. waxaa hirgalay maanta xeebta dheer oo jimcadii hore sawiradii laga qaaday iyo maanta markii loo fiirsho boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 80 20 kalena waa la daala dhaceynaa. dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin, dadka in la garaaco uma baahna, in xabad lagu rido uma baahna. dowladnimada way rabaan, waxay aaminsan yihiin awaamirtaasi in hore ka qaadanayaan. saaka 12 ilaa hadda waa isla taagannahay. dadku qaar badda waa galayaan, waa ka soo saaraynaa. ciidanka booliska badda shaqaynaya iyo dooman shaqaynaya, ciidanka saldhigga shaqaynaya, ciidamo kale nagula soo xoojiyo waa shaqaynayaan. waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay insha Allah awaamirta dowladda ka soo baxday si nabadgelyo inuu ilaahay ku fuliyo, iyadoo qofna ku dhiman qofna lagu dhibaateen. dadkan waa inala fahmayaan. waxaan codsanaynaa in dadka maamooyinka aabbayaasha awaamirta dowladda u hoggaansadaan ilmahooda celiyaan. dhallinyarada imaanaysa waxay ka soo baxeen guryo fogfog, degmooyin fogfog. waxaan rajaynaynaa degmo kasta inay wacyigelin geliso iyadoo fulinaysa awaamirta dowladda. dowladda Soomaaliya ayaa horey u soo saartay amarro wax looga qabanayo faafitaanka cudurka COVID, waxaana amaradaasi ka mid ah in la joojiyo dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka imaan jiray marka laga reebo kuma samafalka. sidoo kalena la joojiyey duulimaadyada gudaha, iyadoo ujeedku uu yahay ka hortagga cudurka COVID-19. waxaana taas barbar socda wacyigelin ku saabsan cudurka oo ka imaanaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Yahya Cali Faarax, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Liido, Muqdisho.